marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda caqabadaha inta badan haysta muxuu ahay biliiska haysta waxaa ka mid ah waxaad ogtihiin ciidanka biliiska dowlad goboleedka galmudug dad yar ayaa markii la fiiriyo tababar la soo siiyay dowladdu soo siisay dadkaasi ma haystaan gaadiid dowladdu ma siin qalab agaba ma siin waxay waajibaadkooda ku gudbaan ma siin muxuu ahaayey hay-adaha deeq-bixiyayaashu sidoo kale weeye oo gacan nagama aanay siin in ciidanka biliisku la tayeeyo oo waxa ay u baahan yihiin helaan hadday tahay qalabka baarista ee amniga hadday tahay tababarada muxuu ahaayey wax kasta oo agab oo ciidamada biliiska lagu tayeeyo deeq-bixiyayaasha kama aanaan helin runtii waxyaalaha ay dowlad goboleedada kala siiyaan ma inaan ka helin haddaan nahay biliiska galmudug dowladdana cabashadeeda waa u gudbinay soomaaliyeed oo hadda taliyaha biliiska ayaa annaga si toosa noo xukuma cabashadeena taliyaha biliiska waa u gudbinay inaanu intaas muxuu ahaayey aan naga dhiman yihiin una noo ballan qaaday runtii markii inuu waxyaalahaas wax nagala qabto annagoo dareemayna hadda dhib badan inuu iska jirana aan dareemayno iyadoo ay sidaas tahay waxaa la yidhi waad wax yar dhahay qaaraanka loogama haro waad u jeedaanoo waxa aan ku dhex jirnay iyo waxaan qabanaynayo inta kiis aan xallinay ama aan qabanay ama maxkamad keennay waad u jeedaan hortiina yaallaan waxaan dareemayaa marka haddii aan helo intaas wax ka badan oo caawin ah ama deeq-bixiyaasha caalamka aan ka helno ama aan ka helno dowladda federaalka ah waxaan rajaynayaa in si buuxda aanu u gudan doono waajibaadkana hor yaalla adoo mahadsan taliya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidaad la socotid siyaasadda galmudug waa isku qasan tahay madaxii ugu sarreeyay ayayna maamulka galmudug ka bukaa sida aad la socotaan idinkana hawlihii bulshada aad u hayseen sharciga ahaa ee leedin xilsaaray ayaa rabtaa inaad gudataan ka warran qaabkaas oo kale sidee isku waafajin kartaan caqabad sameeydan ku tahayna hawshaas ay mararka qaar siyaasadda galmudug idinka hor istaagto dad dambiilayaal soo qaban lahaydeen والله ما في لها يورتا عيدنك يورتا سياسات شغل كمال أمني بقى عيدنك وشغل كلية عيدنك بليسك وحوج محوها نلعب كيسي واجبات كيسو هاي أمني قدرت كدولة قبليات كلمة دوني كجوتان بليس ناس اللي سبوهم جوتا وأمني قبلها ويان سياستنا واحد إسكالي وكل أي محوها هاي حلكيد ويالا محكمات السراء يو سيريا يجوا محوها هاي واحد سايا يكره حلين لايد ama baarlamaanka ha noqoto ama ha noqoto madaxweynaha maxkamad garsoor baa jira kolay taas garsoorku u yaala anaga wax noo yaala ma laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa amniga inaan gudano waajibka naga saaran baxsashada dadkii dambiilayaasha ah ee soo afduubay dadkii cadaanka ahaa oo sanad darro badan galmudug u soo jiiriyay idinkana dhibaato idin keenay sababta ay xabsiga uga baxsadeen maxay ahayd ma meel duleeshay ka duseen ma qaab qabiil baa loo sii daayay mise ciidan idinka awood badan baan soo weeraray والله أنا مركز واحد جوجي مقدشان جوجي سراكيرش بليسكو واحد يشكتي أما ما سرا مركي ملاحظي مركز دل قلم ذو حكون تاي يشكتي هنا بليسك جامته اللي قلنا ما كان دميلياشة ضد محوها هاي لو سميي هنا أي جامته كوهيان إن للدياريي لو إنك كاسايك بحثنا لكن بليس وير وحش غاق قرآن dadkaas loo dhiibay waa dad ay xukuumadda ku ogad ay u dhiibatay Soomaaliya xukuumadda ku ogad baa dadka hadda aad haysaan oo kiisaska galay ee meeshan ku jira waxay leeyihiin xaquuq bay leeyihiin maxaabiistu xaquuqdooda kale sidee u waafajisaan maadaama dhaqaale aad sheeganaysaan gaadiid la'aan aad sheeganaysaan baahi badan oo dadkaas ay qabeen sidee isku waafajisaan xaquuqdooda aad u gudaan mise waa dad saxiin walaal waa mahadsantahay waa su'aal runtii muhiim ah waxa weeye salaadu say ku qabataa loo tukadaa ninku haddii uu dambiile yahay haddii xuquuqdiisa la gudan waayo sharci maahan in la iska sii daayo waxaa sharci ah xad kasta ha kula gasha adiga laakiin dambiilahaas dadka inaad ka hayso baa qasab kugu ah sharcigu ku tusahaya ama ku farayaa annagu wixii aanu hayno waa marsiinaa kan hagar kama galno hadda waa ku tusi karnaa waxyaalaha annagu aan siino raashinkan waa soo arki karnaa runtii dawladdu ma daryeesho arrimaha dawladdu nagama caawiyaan federaalku nagama caawiyo muxuu ahaayey galmudugna hadda weli raashin yar ayaa jira oo hadda maalin weyn loo soo dhiibay dadka maxaabiista oo yar ayaa intaas hadda ka soo gaadhay badi
laakiin waxa weeyaan dadka maxaabiista inaan hayno waa ku qasbannahay si kastaan ku haynay ugu dambayn hawlgallada adinkoo ku jira dhaawac uu boolisku ka soo gaaray markaa bulshada idinkaga imaanaya maxay u badan yihiin mise jiraan dhaawac iyagoo boolisku ku jira hawshooda gudanaya soo gaaray wallaahi dhaawac maana dhimashaa naga soo gaadhay hawlgalkaas annagoo hawsha muxuu ahaayey ciidamada biliiska amniga annagoo gudanayna dhaawac maana dhimashaa naga soo gaadhay dad badan baa nooga dhintay markaan hadda qiyaaso inay inamilayo 6 qof ayaa nooga dhimatay arrimahaas amniga haddii ayagana waxaan leenahay jannadii allah ka waraabiyo dadka eheladiina samir iimaan allah ka siiyaan leeyahay dhammaan ciidamada biliiska ay ka dhintaan meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay samir allah ka siiyo